ninku gabadh qaawan hadduu arko markiiba afku la gelaya ilaa walba hungura ka hayay laakiin gabadh xijaaban hadduu arko xataa hadduu nin dhaqan xun yahay wartani waxa xidhanta iska jir buu isleeyahay hore uguma dheerayn karo laakiin gabadhu hadday isa soo qaawiso ama isa soo carfiso ama ay samayso nin iyo mujtamac iyo wuxuu loo fasaadin karo idan waxa leeyahay xilka gabadha muslimadda saaran waxa ka mid ah inay asturnaato gabadha muslimadda marka xilka diimeeda saaran waa inay asturtaa hadday asturto mujtamaca islaaxisay weeyaan gabadhu hadday jidhkeeda qura asturato macnaheedu waxa weeyaan mujtamaca islaaxisay hadday jidhkeeda asturato macnaheedu waxa weeyaan risaalatul xushma bay bulshada dhex wada risaalada xishoodka ah ninku gabadh qaawan hadduu arko markiiba afku la gelaya ilaa walba hungura ka hayay laakiin gabadh xijaaban hadduu arko xataa hadduu nin dhaqan xun yahay wartani waxa xidhanta iska jir buu isleeyahay hore uguma dheerayn karo laakiin gabadhu hadday isa soo qaawiso ama isa soo carfiso ama ay samayso nin iyo mujtamac iyo wax walba way fasaadin kartaa idan waxa leeyahay xilka gabadha muslimadda saaran waxa ka mid ah inay asturnaato asturnaantu ma aha un inay ilaahay ka baqaysay oo qura ee waxa weeyaan bulshadaadani ugu jirtaa bulshadaan fasahaadaynin hadday gabadha muslimadii xijaaban tahay iyagu cagsigay u wadaano waa maxay waa in bulshada la fasahaadiyo marka gabadh qaawan iyo gabadh ordaysa iyo gabadh shaqaynaysa wax walba qof dumar la dhinac wada si bulshada inta kale ay u fasahaado iyaduna hadday shaqadan bilowdo iyana waa fasahaadsantay inta ka soo hadhay mujtamaca nuska kalena waa fasahaadin karaysa haddii la rabo in mujtamacu islaaxo waa inay gabadhu wanaagsanaataa haddii la rabo in mujtamacu islaaxo ilmaha soo koraya waa inuu fiicnaadaa haddii labadani ay fiicnaadaan macnaheedu waxa weeyaan bulshadani waxay u socotaa dhanka fiican waa bulsho mustaqbal leh oo la rajaynayo tan macnaheedu ma aha inaan leenahay gabadha muslimadii ama cilmi ma baran karto ama ma shaqayn karto ama bini aadamku duruufo kala gedisan wuu leeyahay laakiin duruufuhu waa nawaadir waxna waa bulshada caamka waxa loogu talagalay waxna waa cid dhib gaar ah haysataa waxay qabanayso bulshada caamkii qaabkay u noolaanaysa waa inuu qaabkaa noqdaa laakiin waa dhici kartaa qof dumar oo agoon haysata reer aan biilkuwa ku filayn ee ku kaliftay ninkii gabadhuba inay shaqo tagaan wax badana waa dhici karaan markaana waxaa laga rabaa hadday qaadato inay shaqo qabatana shaqo xushmo leh oo gabadhnimadeeda ay ku caafimaad qabaysa inay qabato qur-aanku wuxuu inoo sheegayaa dumar shaqeeyey nabiyullaahi muuse markuu meeshii ka soo baxsaday fircoon iyo kooxdiisii ceel buu yimi laga cabayo laba habloodoo xoolo wata oo aan xoolahoodii waraabinayn buu yimi iyo dadkii kale oo ceelka ka cabaya maxaa idinku dhacay buu ku yidhi waxay u sheegeen inaanay ragga ceelkan kula boobin ee ay sugaan inta laga baxayo markay raggan xoolahooda ka dareersadaan ayaan anaguna kuwa iyaga waraabsanaa bay ku yidhaahdeen wuu u waraabiyey gabdhaha kan waxa kalifay aabahood baa da-ah cid kaloo walaaloo shaqadan u qabatana ma hayaan deefar iyagay keensatay inay shaqeeyaan way shaqaynayaan markaa xoolahoodiina way wataan waana waraabsanayaan shaqadii la qabanaya iyagaa qabanaya laakiin markay jaanis aragtay nin daacada oo wax u qabtay aabaheed way u tagtay si ay shaqadan uga baxdo waxay ku tidhi aabbo ninbaa waxaa noo qabtay iigu yeedha buu yidhi nin markuu yimina talay u jeedisa waxay tidhi ina khayra man istaajarta alqawiyu lamiin aabba nimaad shaqaale oo cid aad inooga dhigto ninkan xoogga weyn le ammaanada fiican leh ayaa u roon markaynu naqaano qur-aanku odaygii inuu soo bandhigay inantiisii inuu u guuriyo nebi muuse calaa asaas inuu 8 sano u shaqeeyo hadduu 2 sano ugu dari karana ugu daro qisada waxaan u adeegsanayaa waa gabadh shaqaynaysay waa qof dumar oo shaqo qabanaysay jiilkii saxaabada markay ku noqonno dumar badan baa shaqaynayay nabigu calayhi salaatu wasalaam isagoo soconayo ku soo baxay asmaa binta abi bakar ina abi bakar oo asmaa ah oo waaxid min 10 almubashiriin uu qabo oo dambiil sidatoo ku guratay lafa timireed iyo waxseeta dabeetana neefkii buu u joojiyey uu fuushanayo wuxuu ku yidhi soo fuul way ka xishootay way diiday mar dambana waxay tidhi zubayr baan hinaasihiisii xasuusta waxaan sidhi u hayna nabi maxamed baan ku hinaasayaa buu ku yidhi markaa mayr la raacin
mahad qaba waxay tidhi waxaan u sameeyaa bay tidhi awrna wuu leeyahay farasna wuu leeyahay awrkiisana lafahan iyo waxaan baan usoo guraa u daqiijiyaa cunaan siiyaa faraskiisana anaa maydho uga shaqeeya bay leedahay waa shaqo dabadeed labaduba shaqada anaa qabta bay leedahay isna wuxuu mashquul ku yahay jihaadkan iyo waxaan kale u wado gabadhu way shaqaysaa ina nebi maxamed baa shaqaynaysay oo nebi maxamed u timi calayhi salaatu wasalaam oo u sheegtay gacmaheedii inay adkaadeen oo weydiisanaysaa ilaahay rasuulkiisa iyo waxaad isiisaa qof khaadimo oo ii shaqeeya bay ku tidhi wuxuu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam wax ka khayr badan buu kuu sheegaa iyadu khaadimay doon shaqaalay rabtay nebiguna wuxuu ku yidhi wax ka khayr badan buu kuu sheegaa waa maxay wuxuu yidhi habeenkii markaad seexanayso 33 jeerna subxaan allah dheh 33 jeerna alxamdu lilah dheh 34 jeerna allahu akbar dheh taasaa kaaga khayr badan culamada badh baa yidhaahdaa qofka laazima wardiga kani maalintiisa nashiid buu noqdaa qof xooggan oo shaqadiisa xataa qabsan kara ayuu noqdaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam inantiisii khaadimna kuma darine xoogsa buu ku yidhi waxaanu wardigaana wuu baray waxaan uga dan leeyay markaa gabadh xakiimadii way jirtaa sidii khadiija gabadh deeq badanoo wax bixinaysay waa jirtay sidii zaynab intay gacanteeda ku shaqayso wax samayso ayay sadaqadaysanaysay gabadh cilmi badanoo raggu cilmiga u soo doontaa jirtay caaisha cilmi diineedna way taqaanay cilmigii kale waagaa yaalayna way taqaanay dhakhtarad bay ahayd oo cilmiga tibka way taqaanay adiibad bay ahayd oo gabayada iyo adabka luqa alcarabiya way taqaanay waxaasoo dhan inta loo yimaada baa la weydiin jiray oo laga warsan jiray 25 sannadood bay cilmi faafinaysay gabadh masaalixda caamka ee ummadda ka shaqaysaa jirtay asmi waxaynu naqaanaa hijradii wixii ay nebiga iyo abibakar u qabatay calayhi salaatu wasalaam ee daatu nitaaqayn loogu bixiyey gabadh dagaalka ka qayb gashay baa jirtay nasiiba gabadhii la odhan jirtay ghaswat uxud markay dhacday ee muslimiintu ay jabeen dadkii nebiga difaacayay waxaa ka mid ahaa gabadha tan seefteeday sidatay oo nebi maxamed bay difaacaysay ilaa iyo halkan ku dhuftay ibnu qami ah kii nebigana markii dambe soo gaadhay ee koofiyadan madaxa birta kaga dhuftay oo hoos u gashay gabadha tanna nabar halkana buu ku dhuftay oo weyn god baa halkan kaga ooli jiray aseeftu kaas ku dhuftay iyadoo nebi maxamed difaacaysa calayhi salaatu wasalaam haweenku ka mid baa ahaayeen mumaridaat raaca nebi maxamed oo leh ilaahay rasuulkiisa iyo dagaalkaanu kula gelaynaa wuxuu ku yidhi idinka alla idinkuma waajibin idinku jihaadka laa leediin xajkiinna iyo cimradiinna iyo arrimihiinna qabsada buu ku yidhi waxay dhahay ma waa ku raacaynaayo ka bukaanu kuu daaweynaynaa ka nabarku ku dhacaanu qaadaynaa ka biyaa u baahan baanu biyaa siin logisticska waxaa la yidhahdaa ciidanka ayaanu ka adagna bay yidhahdeen haween nabiga raaci jiro logisticska ka qayb geli jiray baa jira yacni marka aan qadiyadda ka warramayo idin leeyahay ra'yiga reer galbeed aan radinayno natiijadiisa tilmaamayno ma lihin gabadhu shaqo kalaba ma qaban karto taa maaha waxaynu wadnaa ee waxa weeyaan bulshada sidoo alla u abuuray subxaana wa tacaala ee saliimkaah inay u dhaqanto inaan la dacaayadeyn ama la maagin tan wax dhalaysa ilmaha korinaysa shaqadii ugu fiicnayd bay haysaa kama shaqo fiicna inanta injineeradee dabaabadda samaysay kama shaqo wanaagsana bulshada dhexdeeda gabadha 4-5 caruura dhashay korinaysa kama shaqo fiicna bulshadana ugama waxtar badna walidaalika waxaan leenahay gabadha muslimadda ah shaqadeeda koowaad ee mucaasirka ee wakhtigan joogtaa waxa weeyaan kow inay rabbigeeda caabudo laba hadday guri leedahay dee ninkeeda inay ateecdo 3 ilmaha ay dhasho inay koriso si fiican u koriso in la koriyaa cilmi u baahan yahay hooyo aqoon leh ilmahay korisay iyo hooyo aan aqoon lahayn ilmahay korisa isku mid noqon maaya waxa laga yaabaa dadku inay yidhahdaan haddaa maxaa wax laga baranaya haddii ilmuhu la korinayo oo ilmaha ma waxaad u haysataa in jahli lagu koriyo lagu beero oo lagu dhalo maaha aqoon gaadhiga lagu sameeyo aqoon ka badan buu u baahan yahay aqoon bini aadam lagu kobciyo lagu koriya inaad qof bini aadama koriso kobcisaa aqoon bay u baahan tahay sida ta injineeradii aqoonta ugu baahan tahay idan huyuumanka inaad barato qofka bini aadamka ah waxaan leenahay markaas ilaahay in la caabudaa waa waxa koowaad ninkeeda inaad adeecdaa waa laba
saddex bulshada shaqada ugu weyn ay u haysaa waxa weeyaan inay ilmo dhasho oo koriso oo kobciso afar waxaan leenahay markaa wixii kale bulshadu afar diinteeda inay wax ka qabato oo ummadda kale diinta gaadhsiiso daaciya ahaato dacwadeedana ay ugu horrayso risaaladan ay faafinayso ee ay asturkeeda iyo xishoodkeeda iyo xishmadeeda ku faafinayso shan waxaan